kulan uu hogaaminaya gudoomiyaha jaarida Isbool ee wadanka Netherland Cabduqaadir Cali Nuune iyo ardayda wax ka baratay jaamacadda dalka Netherland ayaa waxaa lagu qabtay isla magaalada Isbool. kulankan ayaa waxaa ujeedkiisa u ahaa sidii wax loogu qaban lahaa dadka Soomaalida ee ku nool dalkii hooyo lagana saacidi lahaa dhanka waxbarashada. gudoomiyaha guddiga jaariyada Isbool iyo nawaaxigeeda Cabduqaadir Cali Nuune oo faahfaahiyay ujeedka kulankan ayaa kaga mahadceliyay Votorvin iyo Maria oo ah maamulayaasha mashruucan, isagoona dhinaca kalena ku ammaanay wasaaradda arrimaha dibadda ee Holland fursadan ay siisay dadka Soomaalida ahi ee doonaya in aqoontooda iyo khibradooda ay dalkooda dib ugu celiyaan. mashruucan dhiirigelinta ayaa waxaa ujeedkiisa uu yahay mid ay kaga faa'iideysan doonaan ardayda wax ka baratay jaamacadaha dalka Holland. isku xirka mashruucan ayaa waxaa qayb weyn ka qaadatay hay-adda Afsan oo fadhigeedu yahay magaalada Amsterdam ee wadanka Netherland. sidoo kalena waxaa kulankaasi goobjoog ka ahaa wasaaradda arrimaha dibadda Holland, waxaana ugu dambeyntii halkaasi su-aalo lagu weydiiyey oo dhaxalgal ahaa wakiilkii waday qorshahan Votorvin. su-aalaha badana la weydiiyey ayaa waxa ay ka turjumayeen xagga ammaanka sida بسم الله الرحمن الرحيم. إلى غورت مهله ما أنتم مالك جمعة إن المجال الإسبوع عن كيف قبل برنامج كوسابسان سوماليا وحمانت مرتين نوع لبا ودي أو كلمة مجال أمستردام يهوف ضرب برنامج كاسني إيجا نشرح دونا، لكن أنا وحمد مدينة إن فرنو كدمنا وحي سؤال لقى قبل برنامج كاس ama ku saabsan macluumaadku ka hadlayo inaan ka jawaabno ka jawaabaan weydiiyo iyadoo la ilaalinayo nidaamka. waa aad iyo aad mar labaad ku mahadcelinaya ka soo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen. waana ku faraxsanahay in mataqaana aan anagu Soomaali ah inaga oo wadankeennii iyo dadkeenniiba og waxa aan u qaban karno inaan markii barnaamij sidaan oo kale jiro oo qaaliga ah inaan ka wada qayb qaadano. waana waxa loo wada baahan yahay qof kasta Soomaali ah خصيصا وانا واجب يوحد يقول لي وحد حق يواجب اي بني ادم انه له قف كسو Soomaaliya hor jooga ama magaalada Isboolaya gaarkeeda jooga wuxuu maanta nasiib u helay program ku saabsan in aad aqoontaada uga faa'iideyso walaalka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo. marka la leeyahay Soomaaliya waa hal wadan, waa hal qoomiyad, gobol kasta iyo deegaan kasta oo qofkaas ku nool yahay ee ku hadla afka Soomaaliga ayuu quseeyaa, qaasatan Soomaaliya guud inta la yiraahdo. marka programkaas ayaan waxaan u galnay olole dheer in aan maanta ku martigelino magaaladeena Isbool si aan uga qayb qaadano. waxaa jirta markii dad qoomiyad meel ay ku bataan ama ay joogaan waxa soo kordhaya waxyaabo badan. waxaan aaminsanahay waaga wadanka imaanayeen 2 sano markay joogto inaan laaba doono 3 sano kan ugu yar haddaan qiyaaso 4 sano joogaan. waxaan ka soo wadankaas wuxuu sugayaa marka cid kasta oo muwaadin ah oo Soomaali ah oo ka yimid inuu u faa'iideeyo fursad dadka in lacag la siiyo kaliya ma shaqadu ama faa'iidadu ama waxsintu. faa'iidadu waxa weeye aqligaaga iyo maskaxdaada waxaad baratay haddaad ninka walaalka aad uga faa'iideyso adoonan eedeynin waxaan macna lahayn ku mashquulin. waan ognahay dhammaanteen qof kasta wuxuu ka fikiraa maxaa isku cusub, maxaa loo samaynayaa. walaalayaal haddii wax jiraan qofkay ka mid uu soo ogaado ama loo ogaado in dad tabada Soomaaliyeed noocu noqdo waa inaan taageernaa. barnaamijkan dadkii ka qayb qaatay waa dad badan oo kala duwan, hay-ado ka tirsan sida Afsan oo ah urur lagu wada midaysan yahay ayaa dowladda Holland waxay siisay fursadaas. fursaddu marka la siiyay kaliya ma in la wada aqbasheen. waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa aqbalada aqbasheen ka soo qayb gashaan. waxaan ugu mahadcelinayaa waqtiga aad soo siiseen. waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan Soomaalida soo karisay raashinkiis aan cuni doono markuu barnaamijka noo dhamaado. gabdhihii iyo wiilashii iyo hooyooyinkii aabooyinkii xoogoodii geliyay ee dadaalkaas inta nala galay
dhammaan dhalinyarada isku talagashay halka inay meeshan howlkan sidaa u qurxiso waxaan rabaa marka inaan kusoo dhaweeyo programkii dadkii noo waday ee inay noo gudbiyaan waar een groot aantal Somalische organisaties bij zijn aangesloten. En dat is soms een beetje gesprek. iska aadi kara wadankii iyo inuu Soomaaliga si fiican u yaqaan taan waxbarashada hadhoodii baan si fiican uga jawaabi doonaa su'aalo badan baa ka yimid waxbarashada ma waa inta kaliya ilaa dadka ka qaatay shahaadada mise qof Soomaaliya dugsiga kaga soo baxay oo inta jooga ayuu noqon karaa marka qofkii hadii la ogaado inuu shuruudihiisa soo buuxiyo waxa la sameeyaa inuu soo qorto codsi ah inuu ka mid noqdo يعني dadka loo tiro doono Soomaaliya ee tababarka soo sii doono dadka marka codsigaas waxa loo sameeyaa waa loo yeerayaa waa la hadlayaa hadduu shuruudu soo buuxiyo ka bacdi waxa la siinayaa training wax tababar ah sidoo u dhaqmi lahaa sidii laga rabay markuu taga xagga Soomaaliya wasaaradii kala gedisnaa iyo midnimadii Soomaaliya inay dib ugu noqdaan oo ay ka shaqeeyaan waxaan mar labaad u soo jeedinayaa dadkii waxyaalahan abaabulay ee isku keenay cuntadan iyo raashinkan isugu keenay Soomaaliya isuguna yeeray isboor iyo nawaaxigeeda waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantiin guddiga isku soo qabanay oo uu madax u yahay gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa oo dhanba waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantiin waxaan kala soo mahad u celinaynaa oo kale oo labaad dadka ka shaqeeyay cuntadan maanta iyo hadda meesha aan wada siiseen iyo carabitaankan iyo sharaabkan isku keenay ayagana aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan leenahay dadkii nawaaxiga iyo isboorka ka soo qayb galay aad iyo aad u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantiin odayaasha iyo dhammaantoodba waxaan barnaamijka ku soo gabagabaynaynaa oo u soo dhaweynaynaa dadka ka soo qayb galay odayaasha oo iyagana jooga waxaan leenahay mar labaad aad iyo aad u mahadsantiin barnaamijkana sidaas ayuu noogu socon doonaa Abdullaahi Qandac Nuur Maxamed Zahra Cali iyo Maama Zahuura iyo Zaynab Saalax iyo Ogaasad Faadumo kamid ahaayeen guddigii markaasi howshaasi gacan weyn ka geystay xagga soo dhoweynta iyo qabanqaabada kulankaasi ballaaran mahadnaq ballaaran iskale Cabdinuur Faarax iyo Timiro Wana lama hurani, agar
معان ومدان هوي لقى